Assalamu alaikum. Vaccination, immunization, and inoculation waa erayo kala duwan iskuna micno dhow. Loo adeegsado talaalka. Talaal waa hab difaaca jirka loo baro inuu difaac ka sameeyo xanuun gaar ah. Haddaan si kale u dhigo waa qaab jirka loogu tababaro inuu ka adkaado xanuun dhaliya gaar ah. Waxaa loo adeegsadaa in lagu cidhibtiro xanuun dad badani galaaftay oo halis ah sida polio, influenza iyo COVID-19. Noocyo kala duwan ayuu leeyahay, laakiin labada ugu caansani waa nooc lagu diyaariyo xanuun dhaliya aan noolayn si jirka loo baro. Afka qalaad lagu yiraahdo inactive vaccines waxaa ka mid ah talaalka cagaarshowga nuuca A, polio iyo raabiyada. Nooc lagu diyaariyo xanuun dhaliya daciif ah oo nool waxaa afka qalaad lagu dhahaa live attenuated vaccines. qaybtani waxtar ahaan waa ay ka awood badan tahay qaybta kale. Waxaa ka mid ah talaalka jadeecada iyo hablo-baas ama busbus. Talaalka ugu horeeyay waxaa hal abuuray dadkana baray dhakhtar British ah lagu magacaabo Edward Jenner sanada 1796. Talaalka uu soo saaray waxa uu ahaa nooc lagaga hortagayo laguna ciribtirayo xanuun la yiraahdo smallpox oo xilligaa dad badani galaaftay.